afhayeenka ciidanka booliska Somaliland Faysal Xiise Cilmi ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta taliska guud ee ciidamada booliska Somaliland oo ay ku wehelinayeen taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada boolisku waxa uu kaga hadlay faldambiyad xalay ka dhacay magaalada Hargeysa kaasi oo sarkaal ka tirsan ciidamada immigrationka Somaliland oo lagu magacaabo Yuusuf Taanyero uu rasaas ka riday kaalinta sideedaad ee magaalada Hargeysa faldambiyadkaasi oo sababay kadib markii gurmad taliyaha ciidanka booliska ee degmada Maxamed Mooge iyo ciidan watay ku yimaadeen goobtaasi in lagu dhaawaco taliyaha afhayeenka ciidamada booliska Somaliland Faysal Xiise Cilmi oo sharaxaya faldambiyadkaasi sidoo uu dhacay sida ugu howlgalay ciidamada booliska Somaliland waxa uu yiri xalay goor ay saacadu hayd koodii barkii ayaa waxa rasaas ka riday kaalinta sideed nin Maxamed oo lagu naanayso Taanyero kana tirsan ciidanka immigrationka ee Somaliland ninkaasi rasaas ayuu halka ka riday kadibna waxa ku baxay taliyaha saldhigga booliska ee Maxamed Mooge iyo ciidan wato dhame Cabdi Kayd isla markiiba ciidanka rasaas ayuu ku furay waxaana ay rasaasti ku dhacday taliyaha saldhigga Maxamuud Haybe iyo askar la socday oo imika yaala cusbitaalka guud ee Hargeysa ninka ay sanadii gaadhayo watay oo ku baxsaday ciidanka booliisku way ka si mugle ay uga daba tageen waxay gacanta ku soo dhigeen labadii gaari kii uu ku baxsay mid kale oo ay ciidanka booliisku gacanta ku hayaan baaburka waxa lagu arkay mid kamid ah dhiig buu lahaa taasoo muujinaysa in cidii gaariga wadatay uu dhaawac yahay labadii gaarina gacanta ayaa lagu hayaa falkaasi eedeysanaha waxa ka caawinayay laba wiil oo isagu dhalay ayaa falka ka caawinayay ciidanka booliisku meel kasta uu joogo howlgal adag buu ku jiraa waxaan Ilaahay ka baryaynaa in si degdeg ah gacanta lagu soo dhigo anigoo ku hadlaya magaca taliyaha xigeenka iyo magaca taliyaha ciidanka booliiskana waxaan Ilaahay uga baryaynaa taliyaha saldhigga iyo ciidanka kale dhaawacaba inuu Ilaahay caafimaad degdeg siiyo